aniga ku hadlay magaca safaaradda Soomaaliya Sweden iyo nawaaxigeeda Nordiga waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed maanta inoo qabsoontay saa ummadda ogtihiinba waxa lagu jiraa labadii maalmood maalintii African Day saa ogtihiin Soomaaliya qayb bay ka ahayd shirkii 25kii May 1963 lagu aasaasay African Day Soomaaliyana waxay ka mid yihiin 32 wadan qaybta ka ahaa oo maartaqana African Day waxaan sidaa daraadeed waxaan maanta xuseynaa anagoo ah safaaradihii Afrika oo Soomaaliyana qayb ka tahay inaanu maanta xafladii dabaaldegii African Day aanu maanta shalay baan maartay qayb ka ahayn qayb lixaadna aan ka ahayn abaabulkeedana aan qayb ka ahayn laba maalmood bay ahayd maalin waxay ahayd maalinta laga hadlayay arrimaha ganacsiga oo shalay ahayd 28 waxaanu soo bandhignay Soomaaliya haddaan nahay arrimaha ganacsiga oo runtii aanu la wadaagnay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay Nordic Africa Trade Investment Forum waha forum-kaasna aad baan uga qayb galnay waxaana soo bandhignay fursadaha ka bannaan Soomaaliya iyo Soomaaliya inay shirkadihii ka soo qayb galayna waxaan aad iyo aad kala hadalnay inay Soomaaliya diyaar u tahay maalgashi iyo iskaashi dhanka kasta ah kalluumaysiga tamarta dekedaha beeraha iyo xoolaha ganacsiga iyo maartay iyo waxbarasho iyo warshadaha sidoo kale waxaan la wadaagnay safaaradda waxay la wadaagtay inay u fududeyn doonto xiriirka ganacsi iyo maalgashiga iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Nordiga oo rabnaa inaan si fiican uga shaqeyno oo runtii aanu maadkana u soo bandhignay arrimaha muhiimka ah oo Soomaaliya fursadaha ka bannaan dhanka xuska African oo ah maanta oo u dabaaldegayna Cultural Day waxaanu soo bandhignay cuntooyinkii Soomaaliya wadamada saaxiibkiisa waxay soo wada bandhigayeen nin walba cuntadiisa annaguna qayb badan baanu ka ahayn waxa weeye runtii waxay ahayd maalin runtii aad u sareyso oo Afrikaanka oo dhan isugu yimid cunadii isdhexgalkii baalkii Afrikaanka ama dadka wadamada Afrika wadaaga maarta dhaqanka iyo culture-ka sidaa daraadeed labadaas maalmood waxay laba maalmood oo runtii muhiim u ah Soomaaliyana ay qayb muhiim ka ahayd annaguna aan safaaradda anagoo ku hadlayno magaca safaaraddan aan muhiim u ahayd inaan kaga qayb galno waxaan rabaa anuu halkan kaga faa'iidaysanayo inaan si gaar ah ugu mahadceliyo gabdhaha iyagii Soomaaliyeed oo runtii dadaalka badan ka sameeyay maanta cuntada aan cunaynay iyo dhaqanka soo bandhigay oo ugu horeeyaan gabdhihii Ilhaan baartay iyo Tiim Amina waxaan rabaa si gaar ah ugu mahadceliyo iyo Najma oo ahaa gabdhihii runtii aad iyo aad maarta uga soo qayb qaatay halaantoodan ayna hirgelin lahayn inay noo dhacdo xafladda maanta maarta u dabaaldegayno